الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku guda jirnay darsigii ama duruustii aan kaga hadlaynay sixirka sagaal aan u qaybinay midka hore oo sixru tafriiq ah sixirkii dadka lagu kala geenaya aan ku dhex jirnay markaan soo ogaanay qaababka ay saaxiriin dadka u kala geeyaan u sixiraan kadamba waxaan soo qaadan qaabka loo daaweeyo saddex si ah loo daaweeyaan nidhi marka la daaweynayo saddex marxaladaa la maraa marxaladda koowaad waan soo sheegnay marxaladda labaad dhexdeedaan ku jiray oo qur-aanka in lagu akrinaya marka qur-aanka markaad ku akriso aayadaan soo sheegnay markaad ku akriso sidoo kale weel biyo ku jira keensanaysa oo tahliil ah weelkii afkaagaad u dhaweyneysaa oo aayadii qur-aanka hadda lasoo sheegay aayadii aan soo tirinaynay cashirkii shalay aayadahaas ku akrinaya aayaatu ruqya la yidhahda aayaatu sixra ku dul akrinee adoo afka weelku u dhaweynayo candhuuftaada ama maxaa la dhihi jiray tuftaada oo candhuuf yaroo aariya la socotana biyihii waa gaarsiinaya oo ku tufe ka dambe biyahaasi yani waxaa la sameynaa qofkii wuu cabayaa jinniga waa la cabsiinaa markuwa cabsiisid qofkii xanuunsanaa hadduu xanuun dareemo waa weydiine hadduu caloosha xanuun ka dareemay in kale waa weydiine hadduu xanuun dareemo calooshu ka dareemay markaas waxaa laga yaaba sixirka in la cabsiiyey oo qur-aankia ku waday iyo tahliisha cabsiinaysa hadduu jiniga ka hadlo jiniga warkiisa ma rumaysanaysa badanaa jini nabigaa sheegay calayhi salaatu salaam waa kadaabiin waayo waa been badan yihiin marka waxba hadalkiisa ma rumaysanaysa sidoo kale biyaha waxaa ku akrinaya aayadahaasi isla weylkaa ku akrinaya markaa ku akriso qofka la sixirayo biyaha waa lagu quweynaa meel aan musqusha ahayn maadaama tahliil ay tahay meel aan musqusha ahayn inta qofka istaajiso ama baaf inta loo dhigo baafkaasu ku quweysanaa biyahaasaa lagu quweynaa ilaa dhowr maalmood 7 maalmood ilaa bil oo kale qaabkaas ugu quweysanaa culimmada waa baneeyeen ihaana ma aanay dhehen qaarkood waa lagu quweyn karaa yidhaahdeen sida waxiid cabdisalaam baali oo kale kitaabkiisii asaarim albataar fi tasadi lisaxarati alashraar sidaasuu ku leeyahy waxiid cabdisalaam baali marka hadduu jinniga ka hadlo yidhahdo niyo ninkan sixirka waa sixir wadada loo dhigay wuu ka talaabsada hadduu yidhaahdo ama maradiisa loo mariyey ama haddii la yidhaahdo marka waa asigaa ku dul akrinaya sidaasaa samayne marka sidaas haddii marka isbuuc markaa qur-aanka ku celiso dhowr isbuuc aad saarto haddii yani jinniga uu ka hadlo waa kaas hadduusan ka hadlinna ilaahay caafiyana waa kaas kadamba haddii uusan ka hadlin uusanna qaylinaynin laakiin xoogo yar jarjareys uu jarjareynayo cajal ama mimri waxaa ugu soo duubay aayado suuratulbaqara iyo suuratu saafaat iyo suuratuljinni iyo suurad badana ugu soo duubaysaa fahmaysaa ugu soo duubay suuratu ikhlaas iyo suuratulfaraq suuratunaas suuradaasa ugu soo duubay kadibna waxaa amraysaa waxaa leedahay niyo cajalkan subax walba iyo galab walbo gurigaaga ka shidhnaado qur-aankan adna dhegeyso gaabso markaad gaabsatid yani mimriga ama sameecadda madaxa agtiisa dhigo iska gaabi sidoo kale 5 salaadna waqtigeeda salaad walbana waqtigeeda ku tuko markaad tukato salaada subaxna waxaad akhrisataa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir adkaartaas waxaa akhrinaysaa leedaad 100 mar akhri muddo bil ah marka subax kasta hadaad 100 akhriso yani 30 ku dhufo waa intaasaa lagaa rabaa inaad subax walba 100 akhriso nabi maxamed aa yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii 100 akhriyo laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir 100 mar qofkii yidhaahdo yani 100 intaasoo dembina waa laga tiraa 100 ajirna waa loo qoraa yani qofkaasi maalinkaasna jinni iyo shaydaan maalinkaasoo dhan ma taabanayo hadduu galabka akhriyana habeenkaasoo dhan jinni iyo shaydaan maku taabanayo haddaad saas ku dhimatana jannada wax kaaga horey yani jannada ay ka gelaysaa saa darteed marka laa ilaha illa waxdahu laa shariika lahu akhri aan leedahay 100 jeer soosan jinniga uusan kugu gelin kii hore kugu jirin uu kaa soo baxo sidaasaa dhahaysaa suuratu duqaana cajala ugu soo duubay waa dhegeysiine kadamba waxaa leedahay inuu istikfaarta badi maalinka ugu yaraan 100 jeer astaqfirullah wa atuubu ilayh ugu yaraan 100 jeer maalinka akhri aan leedahay sidoo kale waxaan leedahay sidoo kale 100 jeer aqri laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla walaa quwata ila billahi alcaliy alcadiim iyadana 100 jeer aqri 100 laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah 100 astaqfirullah wa atuubu ilayh iyo 100 laa xawla walaa quwata ila billah 100 ama ka badan xataa way fiicantahay in aqris laa xawla
muddo bil ah ugu yaraan bil subax walba 100 aqrine oo min 100 aqrine adkaartan soo sheegnay intaas waxaan kaga baxnay marxaladii labaad saddex marxalada loo daaweeyaa marxaladii labaad marxalada saddexaad ugu dambaysa waxa waaye marka la daaweeyay kadib waa daaweysay quraankii ku aqrisay ilaahay waa ka aqbalay ilaahay quraanka ugu aqbalay qofka sixirka waa ka baxay waa fiicnaaday ma sha Allah gabadhu jeclaa xaaskiisa gabadhu nacbaaday oo xaaskiisa ahayd wuu jeclaaday sidoo hore u jeclaa ninkii walaalkiisa oo la kala geeyay way is jeclaadeen sidoo hore isku noqdeen ma sha Allah sixirkii buray dayib marka waxaa la rabaa marxalad labaad jid marka daaweyso miska bixiisdaadi hada shiiqi quraanka saaray tahay ha bixin ninkan mid cidla kaga tagin maxaa yeelay ninka waxa waaye hadday maqlaan qolada saxiriinta ah ninka inuu fiicnaaday oo duurkiisa galay isjecel yihiin sixirka waa soo cusboonaysanaa saaxirku u noqonaa liyujaddida lahum sixra sidoo sixirku ugu soo cusboonaysiiyo mar kale saa darteed qofka oo xanuunsan ama la sixray ama jinniga haayo waxaa waajib ku ah alla yani inuusan allaa yuclima axadan bidalika inuu caafimaaday inuusan qofna u sheegin yani sixir iyo jini in laga helo la daaweeyo inuusan cidna u sheegin sidaasaa laga rabaa wuxuu kaloo sameynaa salaadaha shanta uu ilaalinaa saa hore usoo sheegay jamaacadu ku ilaalina hadduu nin yahay jamaacada masaajidka ku tukanaa jamaacada waqtigeeda ku tukanaa hadday gabartaana gurigeeda qolka ugu dambeeya ku tukanaysaa sidaasay samaynaysaa dayib marka sidaas waay sidoo kale waxay ka fogaanaysaa muusig iyo waxyaaba lamid ahna salaadaha marka sidaas u laazimaa leedahay jamaacada ku laazim hadday dumar tahayna gurigaaga isaga tuka waxay marka la aadaamaan leedahay marka hees meel hees ay ka shidan tahayna istaagin gurigaagana hees iyo muusig ha ku shidan xitaa idaacadaha markay soo galayaan muusig ay ku bilaabdaan idaacad walbo astaan lagu gartay leeda oo muusig ah muusigadaasna ka fogo waa leedahay dhegeysanin waxaa kaloo leedahay laazim yani weysqaadka intaadan hurdin ka hor weys qaado markaad weys qaadato ayatul kursi iyo adkaarta marka la seexana adkaar la aqriyo ayatul kursi iyo labada aayado ugu dambaysa suuratul baqara iyo suuratul ikhlaas iyo suuratul falaq suuratul naas min 3 jeer aqri jirkaaga mari jeegadaada ka soo bilow ilaa iyo lugaaga jirka intiisi kala mari aa leedahay adkaartaas ku seexo sidoo kale waxaa leedahay markaa guriga ka baxaysa bismillaahi ku bax markaa soo galaysna bismillaahi ku soo gal cuntada bismillaahi ku cun dharka markaa iska bixinaysid yani bismillaahi takbaanka ku saar soota shayddaankaaga taaban markaa gashanaysidna alxamdulilahi ku gasho waxaa kaloo leedahay subax walbana adkaarta ha ka tagin oo laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah boqolkii ha ka tagin sidaasaa leedahay marka ugu yaraana qur-aanka maalinkii aqri oo kitaabka juz ama xisibta aqri qur-aanka hadduu qof qur-aan aqoonin hadduu yahay qur-aanka uusan aqooninna dhegeysaa leedahay qur-aankii lasoo sheegay dhegeyso adkaaru sabax adkaaru masana laazim subax adkaar aqriso galabtina aqriso saasaa leedahay marka saddexdaas qaabaa loo daaweeyaa sixirkaas tafriiq halkaas waxaa noogu dhamaada sixiru tafriiq sixir maxaa la yidhaahdaa qaabkee yani lagu gartaa saaxirka xukunkiisa muxuu yahay waxaan kaloo soo ogaanay sixiru tafriiq yani qaababkay saaxiriinta u sameeyaan iyo jinniga qaababkay u sameeyaan qofka loo sixiro waxaan kaloo ogaanay qaabka loo daaweeyo oo saddexdaas marxala loo daaweeyaa halkaas marka waxaa noogu dhamaaday sixiru tafriiq aa noogu dhamaaday insha allahu tacaala waxaa geli doonaa sixirkii kale oo la yidhaahdo sixirulmaxaba sixirka isjeclaysiinta geli doonaa sixirka labaad waxaa la yidhahdaa sixirulmaxaba laba qof isnacab waa isjeclaysiinaya daat waxay ahayd laba qof isjecel oo yani aad isku jeclo walaala ama isqabo alisnacbaysiinayo kan laakiin waxaa laba qof isnacab alisjeclaysiinaya waay nabigana waa diiday calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina aruqa waatamaa'ima wattiwalata shirkun uu yidhi nabi calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas imaam axmed iyo abu daawuud iyo ibnu maajah iyo xaakimaa wariyeen fahmaysa sheekh naasir uddiin albanina yani saxiix waa yiri silsilada uu ku saxiix yeelay raqamka 331 saa darteed nabi wuxuu yidhi ina ruqaa tufta iyo tamaama xirsiga iyo wattiwalata dheh taada hoos dhig waawadan kordhig wattiwalata shirkun yani tufta tamaaimta xirsiga iyo madiidadaba shirka waa tiwalada waa madiido waxa qofka waa uu necba in la isjeclaysiiyo qofkii awal ku diidana waxay ku leedahay wax walba haye ku leedahay ma diidayso waa ismeersanayna haye waa baxayna haye waa seexanayna haye waa istaagayna haye cunta cunayna haye waa biibayna haye wax kasta haye ku dheer marka ma diidaa laab waxay ka diidaysa malaha ninka inaad marka sixir qaab ka mid waaye ibnu al-athir ninka la yidhaahdo wuxuu yidhi tibalada waxaa la yidhahdaa bikasri ta wa fatxi lwaaw intaada la hoos dhigo waawdana la kordhigo
maa yuxabibu lmar'ata waa wax gabadha jeclaysiinayo ilaa zawjiha ninkeeda jeclaysiinayo gabadha ninkeeda neceb ninkeeda la jeclaysiinayo min asixri min ajli sixri dartiisi ayay yani ninka u jeclaanaysaa iyo wagayrihi sixir waxaan ahayn wajacalahu min ashirki yani ilaahaynu nabigana wuxuu ka dhigay shirkigo ka dhigay liictiqaadihim aaminsanaashada ay aaminsan yihiin ana dalika yani sixirkaasi yuahiru inuu saameynayo wayafcalu uu la falgalayo khilaafa maa qadara lahu llahu tacaala ilahay wuxuu qadaray waxaan ahayn inuu sixirkan samayn karo waxyaabahaas aaminitaanka ay aamineen saar darteeda yani shirki ay ku tahay ay ku gaaloobayaan marka ibnulahir hadalkaas quruxda badan wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa annihaaya mujaladka 1 safxada 200 ayuu ku leeyahay sheekha la yirahdo ibnulahir yani imaamkaas xaafidka marka halkan marka la joogo waxaa muhiim ah inaan baraarujino waxaa muhiim jiddan ah inaan baraarujino tufta yani xadiidka uu sheegay xadiidka haddaan soo akrinay waa tufta yani keensanayso oo jinniga tufta yani jinniga la magangalayo iyo shayaadiinta oo jinniga loo heysaayo iyo waxyaabahaasaa la diida ama tufta oo shareecada islaamta waa la ogolaya qofkii xanuunsan faatixada lagu tufo oo qur-aankii kale lagu tufo oo adgaartii sharciga lagu tufo oo la yidhaahdo bismi illahi arqiika wallahu yashfiika min kulli da'in yudiik wa min kulli nafsin aw cayni xaasid allahu yashfiik ducooyinkaasoo nebiga qofka jiran ku aqri jiray in lagu aqriyo way fiican tahay taas way bannaan tahay biijmaaci alculamaa culamado dhan aa ku ijmaacay laakiin tufta la diida waa tan oo shirkiga oo jinniga iyo balaayada oo af jinniga oo intuu marada isku xirxiro oo ku tufayo wa min shari nafaathaati fi lcuqadi waatuu ilaahay uu yiri yani ilaahay waxaan ka magan galaa sharta dadka islaamaha wax tuftufo gunidaha iyo marooyinka inta isku gunidaan isku xirxiraan af jinniga ku tufayo kuwaasaan ilahay ka magan gala ama tufta kale way banaantahay nebi maxamed aa yiri sala allahu calayhi wasalama laa ba'sa biruqa tufta in la isku tufa dhib malahan maa lam takun shirkan haddaysan shirki ahayn xadiidkaas waxaa wariyey imaam muslima saxiixiisa ku wariyey marka saa darteed marka sixir madiidada waa ka sixir maxaba waa layirahda ama sixirka isjeclaysiinta ama sixirka madiidada maxaa lagu gartaa qofka inuu sixiran yahay qaas ahaan sixirul maxaba inuu hayo maxaa lagu gartaa sixirkii jacaylka maxaa lagu gartaa ayada waa sheegi doona waxaa lagu gartaa ashafaqu walmaxabatu zaa'idataan qofka jacayl aad u weyn inuu dareemo jacayl xadka bax sidoo kale alraqbatu shadiida yani inuu aad u jecel yahay fi katrati aljamac galmo badan maanta o dhan waxay iska rabeen ninkeeda inuu galmoodo isaga wuxuu rabaa naagtiis markas inuu galmoodo jacaylka markuu guursanayo maalinkuu shukaansanayo uu guursanayay jacaylku u qabay mid labalaaba uu qaadaan caadi ahayn waxyaabahaas maa lagu gartaa iyo cadamu sabri canha inuusan gabadhan ka sabri karin dadku waa isfuraan waa laysqabaa haddii laysfurana maalmo kadib qofka qalbigaaga yani inuu ka go macquul naa kale markaa guursato laakiin qoftan qalbigiisa maba ka go-aysaba maka sabraayo waxaa laga yaaba iyadoo dalaaqada ka dhamaatay inuu si xaaraam ugu tago waxyaabahaas o dhan waxay kamid tahay yani calaamada lagu garto sidoo kale waxaa kamid ah atalahufu shadiid luriyatiha markasta wuxuu aad isku dulayn inuu aragtideeda maka maarmi kara inuu arko iska rabaa sidoo kale wuxuu kale lagu gartaa qoftaan hadaladeeda maba diidaya si ina la-aan haddii arin gaalnimo farto haddii afarto arin dembi ah hooyadaa gooy aabbaha gooy hooyadaa aabbaa ma arki karo gurigood naga guuri waafaq ah marka hooyadiis aabays haddii caynaysan waa la caynaa noocdaasa lagu garta waqtigaa nagu dheeraada marka sixrulmaxaba maxaa la yidhahda waa soo ogaanay xadiidkaasi maxaa lagu gartaana waa kaasa waxyaabihii kale noo dhimana insha allah qaabka loo daabay iyo waxyaabihii kalena dib aan kasoo sheegayna wallahu aclam wasala allah wasalam calaa nabiyina muxamed